waxaan raacinayaa in yar baa kullee dad mikrofon soo istaagto dee kelmad baa la iminka de waa maayirkii hore kiisa la yiraahdaa dhibaatana iguma dhicin waxa weeye siyaasiyiin badan baa dadka ku abaabula haddaynu wax weyne inanteena goblamaysa amba inanteena guubeelaysa iminka maalin walba inan baan bixiyaa oo ikraan taa ugu dambaysa ay tahay wax ayaa uu noqonayaana ma jiro waxaan leeyahay ninkii xisbi doonaya iyo ninkii doonaya oo iyo ninkii wax doonayaba nina una dadka shacbiga waxaan leeyahay dhiigiina ma lahe codka uma halaysa siiyo kii wax waayana de Soomaaliland waa la wada leeyahay Soomaaliland hal wada joogo qoladii saaxiibaday wadaniyo halka fadhiyana waxaan leeyahay markay meesha yimaadeen gudoomiye iyo musharaxiiba way socdaanay labada dhinac bay isu qaybinayaan ba islaahay malaa reer Gibile codka ba doonayaan baan filayaa waxaan arkay nin ka hadlayay oo arrimo siyaasi ka hadlayay oo reer Gibile iyo wadani ka hadlayay reer Gibile iyo wadani halkan maanta ma aha Gibile iyo wadanina waa dad isax Gibilena waxa ka mid tahay dalka uu wadani ka sharaxan yahay waa dadka yagii halkaas waxaan casuumay Cabdiqani iyo aanu casuumada u nimi waxa se dareemayaa un mas'uuliyad darrada ninka mas'uulka ka hadlayay waqtigan maanta taagan waxa idin xasuusto abaarta iyo duruufta iyo sixir bararka lagu jiro oo aad iyo aad bulshada u taabtay halku ka xasuustay fadhigayaga inaanu halka fadhino oo aanu reer Gibile la fadhiisanay inaanu Cabdiqani la fadhiisano laba isku beel ka soo jeeda waxay ahayd damiirkiisu inuu xasuusiyo duruufta adag ee lagu jiro ee abaarta iyo biyo dhaamiska waxaanan runtii bulshada reer Soomaaliland dawladda iyo qof kasto ka damqanayaba ugu baaqaya horena ugu baaqnay in laga qayb qaato duruufta adag ee biyo dhaamiska iyo abaarta jirta waxaan leenahay xukuumadda iyo inta ku hawlan oo ay guddiga abaaraha loo magacaabay kamid tahay waa la raagteen filashadii leedika filayay annagu xisbi mucaarada baanu nahay gaar waxba uma ururin karo waxaanu wixii qaranku ururinayaanu wax ku darsanaynaa qayb ka nahay